daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka macalinka TV-ga oo hadaan oo kale ama mintan oo kale aynu ku kulano waxaan filayaa in badan oo barnaamijyada telefishinka qaranka Soomaaliya ay soo tabiyo kamid ah barnaamijyada dhinaca aqoonta aanu bidayno in aad wax badan ka dhaxashaan haday noqoto dhinaca aqoonta qaybaheeda kala duwan habeenkan caawa daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka macalinka TV-ga oo si joogta uga baxa telefishinka qaranka toddobaadkiiba 2 jeer iyadoo habeen si toos ah u daawataan casharada cusub habeenka labaad aanu dib ku soo celino sida ay uga faa'iideystaan inta uu dhaafay casharkii ka horeeyay waxaan jecelahay in aad dhagaha noo furtaan muddada kooban ee idila joogno aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa daawadayaasha si toos ah ugu xidhan barnaamijka macalinka TV-ga oo kamid ah barnaamijka aqooneedka telefishinka qaranku idin soo gudbiyo waa kan professor Mariga Hemar oo halkaas si inooga saanba qaada casharadii hore ee macalinka TV-ga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج معالك تيفيكا واد كداواتان تلفزيونka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku soo guda jirnaa casharadii macallinka TV-ga waxaanu ka soo hadalnay casharkii ugu dambeeyay ee 6 isbeddelka qofku uu ku sameeyo naftiisa waxaanu soo sheegnay mabaadi aad u muhiim ah oo runtii aad u baahan tahay daawade marka aad rabto inaad isbeddesho waxaanu soo sheegnay isbeddelku inuu ka bilaabmo marka ugu horeysa qofku fikirkiisa inuu wax ka bedelo fikirku markuu isbedelo waxa isbedelaya qanaacadkii iyo qofku wuxuu ku qanacsanaaba isbedelaya qanaacadkaasi markay isbedelaan waxa isbedelaya dareenkii qofka ayaa isbedelaya dareenku markuu isbedelana waxa isbedelaya qofka habdhaqankiisa baa isbedelaya marka daawad waxaan soo tilmaamay muhiimadda ay leedahay fikirkaaga inaad wax ka bedeshaa casharkeena maanta waxaan ku soo qaadanaa casharkii 7 waxaanu ka hadlaynaa isbeddelka ururada isbeddelka sharikadaha iyo isbeddelka dhammaan wasaaradaha iyo wixii kale ee la mid ah ee urura ah daawada isbeddelku waa shay aad u muhiim ah isbeddelka waan u baahannahay ururka sana waa u baahan yahay haddii aad rabto inaad si fiican isu beddesho oo ururka aad rabto uu isbeddelo waxaan u baahanahay inaad runtii raacdo in mabaadi'da loogu talagalay isbeddelka ururada qodobkeena koowaad waxa weeyaan waa maxay isbeddelka ururada ururadu sidee bay isu beddelayaan isbeddelka marka la qeexayo waxa la yiraahdaa waa in ururku ama organizationku uu runtii isbeddelo isagoo xaalad uu ku jiro raba inuu iska beddelo una gudbo xaalad uu runtii isagu jecel yahay xaalad uu runtii xiisaynayo uu isu beddelo xaalad ay munadamadaadu ku sugan tahay muassasadaadu ay ku sugan tahay in aad ka bedesho xaalad ka si fiican aad u bedesho waxa loo yaqaan change organizational change waana runtii mawaad maanta lagu dhigto managementka lagu dhigto daawada haddaba waxa la iraahdaa waa maxay asbaabta keenay isbeddelku asbaabta keenay isbeddelka waxay runtii ay kala yihiin 2 sababood aad ugu muhiimsan sababka koowaad ee isbeddelka keena wuxuu noqon karaa ee munadamadaada ama ururkaaga ku keenaya isbeddelku wuxuu noqon karaa sabab runtii adiga ka baxsan sabab ka baxsan ururkaaga ka baxsan sabab ka baxsan sharikadaada ka baxsan waa sabab ka imanaya adiga dibadaada meel kale kaaga imanaya laakiin waad ku qasban tahay inaad isbeddeshaa sababkaas wuxuu noqon karaa iyadoo maanta macluumaad fara badan iyo aqoon badan runtii caalamka ay taalo ayaa macluumaadka cusub ee soo kordhaya isbeddelada ku dhacaya runtii aqoonta ayaa waxa ay keensanaysaa in isbeddel ay ka sameeyaan runtii munadamadaada ama organizationkaaga dhexdiisa isbeddel bay ku sameynayaan oo haddaad sharikad tahay waxay imanaysaa teknolojiyadan isbeddelaysa ee casriga ah ee maalinba nooc soo baxaya inay qasab ka dhigto isbeddel inaad ku samayso run ahaantii ururkaagii iyo qaabkaad u shaqaynaysay marka aqoontan isbeddelaysa macluumaadkana cusub ee la helaya waxay keensanayaan isbeddel inaad ku samayso waliba qasab ah inaad runtii aad ku samayso ururkaagii ama sharikadaadii haddii aad ku sameyn weydana waa laga tagaya daawada waxa kaloo sabab noqon kara keensanaya inaad isbeddel ku samayso runtii ururkaagii ama sharikadaadii waxa noqon kara dhaqaalahan caalamka isbeddelaya dhaqaalihii maanta waa isbeddelaya waxa isbeddelaya dooqii runtii muxuu macaamiishu isbeddelayaan macaamiishadu shalay tolo waxay jeclaayeen maanta way nacbaanayaan marka maxaa daawada u baahantahay inaad isla beddesho oo markaas dooqa runtii macaamiishada aad la socoto haddii kale maxaa imanaya in laga tago
waxaa kaloo taa la mid ah run ahaantii tartankiibaa sii weynaanaya tartankii dhaqaalaha sii badanaya waa lagula tartamaya shirkadaadu haddaanay tartankaa isla bedelin haddaanay arrimaha suuqa ka dhacay aanay isla bedelin maxaa imanaya run ahaantii in lagaa tago dawada waxyaalaha kale keensanaya ee asbaabta waa isbedel in aad samayso ururkaaga aad ku samayso waxaa ka mid ah qawaaniintan isbedelaysa waxa laga yaabaa adiga oo shaqaynaya shirkadaadu ay shaqaynayso meel fiican marayso in nidaamyo cusub la soo saaro qawaaniin cusub in la soo saaro taasi qasab maxay kaaga dhigaysaa isbedel inaad samayso daawada waxyaalaha kale sabab u noqon kara inaad isbedel samayso waxa noqonaya isbedelka runtii muxuu ahaay bay'ada arrimaha bay'ada bariga hore hadda dhici jirtay sharikadu inaanay tixgelin arrimaha environmentiga aanay tixgelin iyo arrimaha bay'ada maanta qasab bay tahay inaad tixgeliso sababtoo waxaa dhici karaa warshadaadu waxa ay ka shaqaynaysaa inay saameyn ku samayn karto arrimaha environmentiga iyo bay'ada taasi qasab waxa ay ku tahay inaad isla bedesho intaasoo kaliya wada maaha waxa isbedelka keeni karaa runtii mujtamaca laftigiisa mujtamacu berigii hore sharikaadka kamuu rabin wax inuu qabto laakiinse maanta waxa soo baxay waxa loo yaqaano social responsibility shirkad kasta waajib waxa ku ah inay ka qayb qaadato horumarka mujtamaca marka shirkadaadu inay isla bedesho oo horumarkii mujtamaca ay ka qayb qaadato way ku qasban tahay maanta marka laga hadlayo runtii maamulka waxa la yiraahdaa intaasoo theories intaas oo nadariyaad baa soo baxay intaas oo qaab baa soo baxay oo wax loo maamulo oo qasab ka dhigaya shirkadaadu inay qaadato standards cusub baa soo baxay oo tilmaamaya qaabka loo ilaalinayo quality-ga loo ilaalinayo marka shirkadaadu inay arrimaha la talaabsato quality-ga runtii ay ilaaliso qasab baa ay ku tahay arrimahaas oo dhan maxay keensanayaan arrimahaas oo dhan waa arrimo adig ka baxsan laakiinse dusha kaaga imanaya laakiinse qasab ay tahay in isla bedesho haddaad isla bedeli weydo oo tiraado waan taagnaanaya daawada waxa imanaya shirkadaadu inay hoos u dhacdo ururkaagu uu hoos u dhaco wasaaradaadu runtii hay hoos u dhacdo arrimahaasi waa arrimaha ka baxsan adiga waxa jira arrimo adiga gudahaaga runtii ka dhacaya oo keensanaya isbedel in uu ka bilaamo runtii meeshii aad ka shaqaynaysay shirkadaada in isbedesho ay keensanaysaa taa kan waxa ka noqonaya qofka maamulka jooga oo runtii ku qanca in isbedel la sameeyo qofka maamulka jooga hadduu arko inay arrimo jiraan indicators hadduu arko tilmaamaya inuu isbedelo hadduu arrimaha arko wuxuu ku qasbay inuu isbedelo hadduu arko runtii macaashkii hoos u dhacaya hadduu arko shaqaalihii ka tagaya hadduu arko shaqaalihii soo baahaya hadduu arko go'aamadii runtii aan degdeg loo qaadanayn oo raagaya hadduu arko macaamiishii ka tagaya hadduu arko macaamiishii aan qanacsanayn oo ku faraxsanayn wuxuu qabanayo qasab waxay ku noqonaysaa inuu isbedel sameeyo hadduu isbedel ku sameyn waayo shirkadiisa hadduu isbedel ku sameeyo ururkiisa waxa imanaya run ahaantii laga tago bal isbedelka waxa keeni kara oo ka soo bixi kara shaqaalaha laftigiisa shaqaalaha meesha ka shaqaynaya markasta aqoontoodu si korodha maxay u baahan yihiin aqoon dheeraad in la siiyo daawada hadii aqoontii dheeraad la siin waayo oo shirkadadu ay la talaabsan weydo in aqoon dheeraad siiso shaqaalaheeda si ay isula jaan qaadaan tiknoolajiyada cusub ee soo baxaysa information cusub ee soo baxaya iyo shaqaalaha si isula jaan qaadaan hadii aad tagyiirka iyo isbedelka sameyn weydo runtii waxa imanaya in hoos u dhacda imanaysa dawada waxa kaloo lamida waxa la isbedelka keeni kara ee runtii ka soo baxaya ka unkamaya shirkada gudaheeda ka unkamaya waxa kamida shirkada oo weynaata munadamada aad ka shaqaynayso muasasada aad ka shaqaynayso oo weynaata waxay keensanaysaa isbedel inaad la timaado isbedel la jaan qaadaya weynaanshaha iyo kobaca ku dhacaya shirkadada ku dhacaya ay la imanayso waxay runtii keensanaysaa inaad isbedesho laakiin shirkadadu haday kor u socoto oo si weynaanayso adiguna halkaaga aad taagnaato oo isbedel sameeyaan maxay manaya run ahaantii inaad hoos soo dhacdo dawada waxa kaloo keensanaya isbedel inaad samayso waxa qasab ka dhigaya runtii oo muhiim ka dhigaya shirkadaadii oo u baahan in isbedel samayso in horumar samayso in quality-geeda kor u qaado waxyaalahaas oo dhan waxay keensanayaan in runtii isbedel samayso intaas oo kale dawada maaha waxa isbedelka keensan kara iyadoo maamulka la bedelo qof cusub oo meesha la keenaa waxa runtii keensanaysaa isbedel meesha oo yimaado dawada arrimahaas oo qodobkii koowaad maxay wada sheegayaan waxay sheegayaan asbaabaha keeni kara isbedel runtii inuu imaado oo shirkadaadu ama runtii wasaaradaadu ama qayb meelaha ka shaqaynaysa isbedel inuu ka dhaco ay arrimahaas keensanayaan qodobkeena loo dawada waxa uu sheegayaa isbedelku imsa qaybood buu qaybsamay karaa isbedelka noocyadiisu maxay noqon karaan dawada arrinta hadaynu runtii si fiican u tilmaano isbedelku wuxuu noqon karaa isbedel istiraatiijiya
isbeddelku wuxuu noqon karaa mid aad u fog mid keensanaya dhammaan shirkadu inay isbedesho qayb kasta oo shirkada ka mid inay isbedesho ayuu isbeddelku noqon karaa wuxuu noqon karaa isbeddel aad u fog oo ka fikiraya mustaqbalka fog shirkadu sideeba u ekaanaysaa maxay gaadhaysaa isbeddelka noocaas ee fog ee runtii keensanaya shirkadu sida u dhan tahay in isbeddel ay ku samayso magaceedii inay bedesho servicekeedii inay wax ka bedesho qaabkay runtii u shaqaynaysa inay wax ka bedesho arrimahaas waxaa la yidhahdaa waa isbeddelkaasi waa isbeddelka weyn ee istiraatiijiga ah ee aadka muhiimka ah isbeddelada runtii ku dhici kara shirkadda ama munadamada waxaa ka mid ah isbeddelka la yidhaahdo inaad isbeddel ku samayso keliya qaybta runtii muxuu ahaayey shaqada sida loo samaynayo isbeddel inaad ku samayso qaabka hawsha u soconayso procedureka runtii shaqada lagu qabanayo qaabka runtii shaqaaluhu ay u shaqaynayaan qaabka adeega loo gudbinayo qaabka shaqaaluhu runtii ay u tartamayaan qaybahaas oo dhan oo khuseeyo shaqadii sida loo samaynayo isbeddelka aad ku samaysaa runtii waxa la yidhaha waa isbeddelada sida gaarka u taabanaya runtii shirkadda waxaa kaloo ka mid ah noocyada uu noqon karo isbeddelku waxaa ka mid ah isbeddelka runtii aad ku samaynayso arrimaha gaarka ee kugu dhacaya marka qaar baa laga yaabaa shirkadaada ama munadamadaada inay runtii khatar ay ku dhacdo khatartaas sida aad uga gudubto iyo qaabka aad uga gudbayso isbeddelka aad ku samaynaysaa isna wuxuu ka mid yahay noocyada isbeddelada runtii la sameeyo ayuu ka mid yahay isbeddelku daawad wuxuu noqon karaa isbeddel runtii muxuu ahaayey degdeg u noqon karaa oo aad ku samayso shirkadaada wuxuu kaloo noqon karaa isbeddel waqti qaadanaya oo ayar aad u samayso noqon karaa daawada isbeddelku wuxuu noqon karaa isbeddel saameyn ku sameeya shirkada oo dhan wuxuu kaloo noqon karaa isbeddel aad ku samayso qayb yar runtii ka mid ah shirkadaada munadamadaada ayuu noqon karaa daawada isbeddelka aad runtii lagu sameeyo munadamaadku wuxuu noqon karaa isbeddel la qorsheeyey oo la dejiyey siduu wax isu beddelayaan buu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa isbeddel runtii aan la qorsheynin oo cashwaayi noqon karaa qaybahaas oo dhan runtii maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan oo qodobka labaad weeyaane qodobka labaad wuxuu tilmaamayaa isbeddelada la samayn karaa noocyada ay noqon karaan inuu noqon karo isbeddel aad u weyn inuu noqon karo isbeddel kooban inuu noqon karo isbeddel degdega inuu noqon karo isbeddel runtii waqti qaata intaasba uu noqon karaa isbeddelku daawada su-aasha kale muhiimka halkan taalaa waxay tahay waa qodobkeena saddexaade waa maxay mabaadida isbeddelku isbeddelka marka la rabo in la sameeyo waa maxay mabaadida asaasiga u ah ee keensan kara isbeddel aad u qiimo badan inuu dhaco mabda'a koowaad daawada waxa weyn isbeddelka marka la samaynayo isbeddelkaagu aad samaynaysaa ururkaaga aad ku samaynaysaa wasaaradaada aad ku samaynaysaa shirkadaada aad ku samaynaysaa waa inuu noqdo isbeddel caam ah isbeddel koobsanaya dhammaan qaybuhu ay ka kooban tahay ururkaagu uu ka kooban yahay wasaaradaadu ay ka kooban tahay isbeddelku waanu koobsanayaa laakiin se haddaad tirada qayb yar baan isbeddelka ku samaynayaa run ahaantii isbeddelkaasi wuxuu noqonayaa mid aad u kooban saameynna kuma samaynayo qaybihii kale muxuu ahaaye ururkaaga bale waxaa dhici kartaa qayb keliya haddaad isbeddel istiraah ku samee inay kugu adkaato sababta waxaa la idhaahdaa shirkaddu ama munadamada organizationku wuu isku wada xidhan yahay qayb haddaad isbeddel ku samayso qaybta kalena isbeddel bay u baahan tahay laakiin haddaad tira qayb baan ku samaynaya haddaad tira qaybta saleskan wax ka bedelaya oo marketingka aanad wax ka bedelin sax ma noqonayso haddaad tiraahdo qaybta marketingkan wax ka bedelaya oo qaybihii kale accountingka iyo qaybihii saleska aanad waxba ka bedelin idan mushkilad bay noqonaysaa way isku wada xidhan tahay waxa shirkadu munadamadu way isku wada xidhan tahay qaybta kale saameyn ku samaynaysaa marka maxaa lagaaga baahan yahay dhammaan isbeddelkaagu inuu koobsado qaybaha ka kooban tahay munadamadaadu qaybo organizationka uu ka kooban yahay dhammaan waa ina koobsataa daawada mabda'a labada muhiimku waa maxay mabda'a marka aad samaynayso waa inaa runtii uu jiraa qof isbeddelkan hogaaminaya isbeddelka leader waa inuu leeyahay hogaamiye waa inuu leeyahay qof dadka jihaynaya waa inuu jiraa qof dadka dhiiri gelinaya waa inuu jiraa waa inuu jiraa qof dadka la xisaabtamaya qof dadka evaluation ku sameynaya oo qiimeynaya waa inuu jiraa haddaanu jirin qof ka dambeeya isbeddelku oo isbeddelku yahay qof aan la garanayn cidda wato aan la garanayn isbeddelkaasi suurtagal maaha inuu runtii muxuu ahay uu noqdo qof mid waara ama mid dhaca ama mid saameyn sameeya aad bay u adkaanaysaa daawada markaa maxaa loo baahan yahay isbeddel marka aad rabto inaad ku samayso organizationkaaga waa inuu jiraa qof runtii madax ah qof hogaamiye ah oo runtii dabada ka wada oo suurto gelinaya inuu runtii change-kaasi meesha u yimaado mabda'a kale muhiimka saddexaad daawada waxa weeyaan change-kan aad samaynayso isbeddelkan aad samaynayso ee shirkadaada iyo wasaaradaada aad ku samaynaysaa waa in shaqaalu ka wada qayb qaataan qof kastaa qayb waa inuu ka noqdaa waa inay dadku dareemaan inay qayb ka yihiin sababtu maxay tahay dadku waxay qayb ka yihiin waxay runtii wixii tale laga weydiiyey kama hor imaadaan laakiinse tale haddaanad ka weydiinin haddaanay ka qayb qaadan way kaa hor imanayaan marka muhiim ah waa inay mushaaraka weyna jirtaa waa in laga wada qayb qaataa
daawada mabda afaraad ee muhiimku waa maxay marka aad sameynayso isbedelka halka aad u socoto dadka barta aad u wado fikta aad gaarsiinayso hadafka aad gaarsiinayso waa inuu cad yahay dadku waa inay garanayaan halkee baan u soconaa isbedelkan halkee buu inoo horseedaya wuxuu inoo horseedaya bashbash iyo barwaaqo inoo horseedaya mise meel kale inoo horseedaya waa inuu warkaasi cad yahay qof kastana waa inuu warkaasi u cad yahay daawada qodobka maxaa hayay mabda shanaad ee muhiimku waxa uu yahay marka aad sameynayso isbedelka organization-kaaga aad ku sameynayso waa inaad ku tala gashaa in laga hor imanayo waa inaad ogaataa muqaawama inay jirayso cid ka hor imanaysa waa inay jirayso marka maxaa laga rabaa waa inaad dejisaa istiraatiijiyadii aad kaga hortagi lahayd dadka ka hor imanaya dadka mucaaradka kugu noqonaya ee isbedelka ka hor imanaya waa inaad dejisaa istiraatiijiyadii runtii aad kaga hortagi lahayd aad ku hagaajin lahayd daawada halka waxaanu kaga baxaynaa shanta mabda aadka u muhiimka ah ee loo baahan yahay markaad change aad ku sameynayso organization-kaaga daawada qodobka kale inuu gelinaa waxa weeyaan waa qodobkii runtii muxuu ahaay afaraad waxa weeyaan maadaama aynu nidhi isbedel marka aad sameynayso waa laga hor imanaya oo waxaa jiraysa muqaawama jiraysa su-aashu waxay tahay dadku maxay uga hor imaadaan isbedelka maxaa keena qofku isbedelka inuu ka hor imaado hadda waxaa dhici kartaa isbedelka aad wadaa wanaag inuu wadaa dhici kartaa qofkan inuu wax fiican u keenayaa dhici kartaa haddana waxaa la arkaa dadkuna ka hor imaadaan maxaa keenay ma dadku waxay xataa runtii wanaag u horseedaya maxay uga hor imanayaan su-aashaan haddaynu ka jaabno waxa weeyaan waxyaalaha keena dadku inay ka hor imaadaan isbedelka waxa kow ka noqonaya qofka oo filanaya isbedelkan haddii la sameeyo in runtii resultiga ka soo baxaya natiijada ka soo baxaysa isaga inaanay u fiicnayn oo sidaanay ugu fiicnayn waxa uu dareemayaa isbedel ka dhacaya inuu runtii shaqadiisa wax yeelayo inuu lacagta uu qaadanayo inay runtii uu ku yaraynayo masabku haysto inuu hoos u dhigayo awoodaha uu leeyahay inuu yaraynayo runtii xorriyadda uu haysto inuu dhimayo qofka hadduu dareemo change-ka aad wadaa isbedelka aad wadaa inuu qofkaasi runtii natiijada ka ratimaysa ay noqonayso inuu masaalix badan ku waayo maxaa imanaya qofkaas inuu ka hor imaado qofkaas uu ka hor imanaya markuu eego waxa ka ratimaya waxa ka dhalanaya isbedelkaasi inaanay maslaxadiisa uga jirin qofku ka hor imanaya daawada waxyaalaha kana keena qofku inuu ka hor imaado dadku inay ka hor imaadaan isbedelka waxa kow iyadana qodobka labaad ah iyada oo runtii ay runtii uu daciif yahay ama ay liidato siday dadku u fahansiin isbedelkan iyagoo communication-ka iyo macluumaadka dadku ay ka haystaan isbedelkani aad u yar yahay maxay keensanaysaa dadku inay ka hor imaadaan haddii runtii dadkan macluumaad badan aanay ka helin isbedelkan haddii aanay ogeyn halka loo socdaa waxay tahay haddii aanay ogeyn manaaficda iyo wanaagga ay ka helayaan haddaanay ogeyn runtii wanaagga ay ka helayaan isbedelka dhacaya maxay imanaya inay ka hor imaadaan marka hadduu yar yahay communication-ka xidhiidhka u dhaxeeya qofka isbedelka wada iyo runtii ka la rabo in wax laga bedelo xidhiidhkoodu hadduu aad u yar yahay macluumaadku la siinaya qofka isbedelka lagu sameynayo hadduu yar yahay maxay imanaya qofku inuu ka hor imaado oo muxuu uga hor imanayaa dee ma garanayo waxaan isbedelka loo sameynaya wuxuu ka faa'iidaya ma garanayo marka qofkii dawada maxaa la yidhaha waxaa muhiim ah isbedel marka aad sameynayso qofkan waa inaad fahansiisaa isbedelkan aad wadaa faa'iidada uu leeyahay bal waxa la yiraahdaa waa in la sameeyaa cost and benefit analysis waa in la analyze kareeyaa la faguraa qofkan muxuu ka faa'iidaya isbedelkan muxuu ku khasaaraya marka qofku ogaado wuxuu ka faa'iidaya isbedelkan isla mar ahaantan uu ogaado wuxuu ku khasaari karo markuu arko isbedelka inuu dhaco inuu wanaag badan ay ku jirto inuu wax badan ka faa'iidayo markuu arinta dareemo maxay imanaya inuu ku qanaco marka dawada waxa la yiraahdaa iyadoo xiriirku uu yar yahay u dhaxeeyo qofka isbedelka sameynaya iyo qofka lagu sameynaya xiriirkaas oo runtii keensanaya macluumaad badan inaan ahayn qofka lagu sameynaya waxay keensanaysaa qofku ka hor imaado dawada waxa kale oo keensanaya in qofku isbedel ka hor imaado waxa keensanaya qofka oo dareema isbedelkan hadduu imaado inuu culays badan la saarayo qofku hadduu og yahay organization-ka haddii wax laga bedelo in arrintaas culays ku keenayso in xorriyadiisa ay yaraynayso in shaqo badan ay dusha ka fuulayso in waqtigiisa lagu badinayo la oranayo waqti badan shaqee hadduu culayska og yahay isbedelka imanaya culays isaga inuu ku keenayo muxuu dareemayaa isbedelka ka hor imanaya waxa kaloo daawada keeni kara qofku isbedelka inuu ka hor imaado qofka oo dareema isbedelkaasi hadduu imaado dhaqankiisa inuu wax ka bedelayo caadaadkiisa iyo qaabka uu shaqaynayay hadduu arko inuu wax ka bedelayo runtii isbedelka imanaya qofku ka hor imanaya
hadduu qofku qaabku u shaqaynayay iyo proceduresku marayay iyo qaabku la qabsaday ee uu aad u yaqaanay uu og yahay qaabkan cusub ee la keenayo inuu ka hor imanayo oo ay keensanayso qaab cusub in la keeno qofku ka hor imanaya hadduu og yahay isbedelkan dhacaya inuu keensanayo aqoon kale inuu qofku barto oo markii hore waxa laga yaabaa computerka inaanu aqoonin wuxuu ogaaday isbedelkan hadduu imaado inay qasab ka tahay computerka inuu barto qofku muxuu sameynayaa isbedelka uu ka hor imanaya sababtu waa maxay wuxuu qofku dareemayaa qaab dhaqankii uu hore kusoo shaqaynayay qaab ka duwan in looga baahan yahay aqoon ka duwan in looga baahan yahay marka muxuu keensanayaa inuu qofku ka hor imaado isbedelka dawada waxyaalaha keensanaya qofku inuu isbedelka ka hor imaado waxa kamid ah qofku oo kalsooni ku qabin qofkan isbedelka wada qofka uu arka qofkan isbedelka wada inaanu daacad ka ahayn qofka aaminsan qofkan isbedelka wada in lagu fashilmaayo arrimahaas oo dhan maxay keensanaysaa maadaama kalsooni darra meesha ay jirto maxay keensanaysaa qofka inaanu ku qancin isbedelka dhacaya waxyaalaha kale keensanaya qofku isbedelka inuu ka hor imaado dawada waxa kamid ah qofka oo dareema isbedelkan la wadaba inaan la diraasayn isbedelkan la wadaba inaan qaab cilmiyeysan aan loo gelin isbedelkan la wadaba qofka oo dareema inaan runtii la qorshaynin oo qaab inta la qorsheeyay laga baaraan degay oo la diraaseeyay oo research lagu sameeyay inaanu ahayn uu yahay qaab runtii ay laab la kaca oo runtii aan hore loo diraasaynin oo cashwaaiya qofka hadduu sidaa dareemo maxay imanaysaa inuu istiraahdo isbedelkaasi hadduu dhaco khasaar uu keenaya taasina qofka maxay ku keenaysaa inuu runtii isbedelkaa diido inuu ka hor imaado dawada qodobkaasi waxa weeyaan waa qodobkii afraad ee tilmaamayay asbaabta ugu hor imaadaan dadku isbedelka su-aasha dawada waxay tahay waa qodobkeena shanaad ee aan kusoo khatimaynay waxa weeyaan dadku markay isbedelka ka hor imaadaan sideeba u dhaqmaan dhaqankooda waa sidee isbedelka marka laga hadlaayo dadku waxa weeyaan afar nooc weeyaan afartaa nooc waxay kala yihiin qof markuu arko isbedelkani inaanu dantiisa wadin inuu runtii aanu wanaag u wadin uu ka hor imanaya qof waa noocaas waa qofka markuu ku qanco isbedelkan inaanu isaga dantiisa ahayn maxay keensanaysaa qofkaas inuu ka hor imaado qofka labaadi waxa weeyaan waa qof isagu runtii aan hubin dantiisa waxaan inuu wado isbedelku ma hubo isbedelkan inuu dantiisa runtii wado laakiinse wuxuu isleeyahay isbedelkan hadduu imaado waxaad waayi kartaa masaalix fara badan qofkaasi muxuu sameynayaa qofkaasi wuxuu sameynayaa maadaama runtii uu isleeyahay waxbaa dhici kara oo isbedelkan dhib buu ku keeni karaa muxuu sameynayaa isbedelka uu ka hor imanaya laakiinse qaabkeebuu uga hor imanaya kii hore qaabku uga hor yimi ugama hor imanayo kii hore isbedelka already wuxuu arkayay inaanu wanaag wadin toos buu uga hor yimi waliba si runtii public ah oo la arkayo uga hor imanaya ka labaad muxuu sameynayaa isagu ma hubo isbedelkan wanaagiisa inuu wado laakiinse uu ka shakisan wuxuu isleeyahay isbedelkan waxa laga yaabaa masaalixda inuu dumiyo muxuu markaa sameynayaa isbedelka uu ka hor imanaya laakiinse si hoose uga hor imanaya si hoostu ka wadaya mucaaradada hoostu ka wadaya tushuushka uu ku furaayo isbedelka dhacaya qofkaasina waa qofkii labaad qofka saddexaad waxa weeyaan waa qof isagu aan garanayn isbedelkan dhaci doona maxaa ka ratimaaya natiijadiisa ma garanayo isbedelkan imanaya ma wanaag buu wadaa mise wax kale wada marka qofka noocaas wax la yiraahdaa maadaama aanu garanayn wuxuu u wada isagu way fududahay in lagu qanciyo isaga runtii waxa u baahan tahay in lagu qanciyo inuu wanaag u wado dadka noocaasina inta badan kama hor imaadaan isbedelka oo sida kuwa hore si toosan uguma hor imanayaan si dadban uguma hor imanayaan laakiinse maxaa jiraya shaki baa ku jira dadka noocaas uu shakisan yahay marka dadka noocaasina maxaa loo baahan yahay runtii in lagu qanciyo oo macluumaad badan la siiyo qofka afraad waxa weeyaan waa qof isagu aaminsan isbedelkan dhacaya inuu wanaag u wado inuu runtii horumar u horseedayo qofka noocaas muxuu sameynayaa uu ka qayb qaadanaya isbedelka isaga horseedaya uu abaabulaya marka dawada waxaan leenahay dadka marka runtii la eego isbedelka marka laga hadlayo dadku waa afarta qaybood qof isagu arkay isbedelkan inaanu wanaag u wadin qofkaasi isbedelka uu ka hor imanaya waliba si toos ah oo bareer uga hor imanaya qofna waxa weeyaan waa qof isle isbedelkan wanaag kuma wado inkastoo aanu hubin laakiinse wuxuu isleeyahay isbedelkan wanaag kuma wado qofkaasi muxuu sameynayaa isbedelka uu ka hor imanaya laakiinse si toos uguma hor imanaya si hoos uga hor imanaya qofka saddexaad waxa weeyaan waa qof aan isagu kala garanayn isbedelka ma wanaag buu u wadaa mise wax kale u wadaa qofkaasi isagu muxuu sameynayaa isagu waa qofka runtii u baahan macluumaad badan in la siiyo waa qofka shakisan weeyaan kolba cidii ku badisa kolba cidii ku qancisa qolada diidan haday ku qancsana kuwaas oo raacaya
qolada ogol hadday ku qanacsan kuwaasoo raacaya qofka afraad ee daawada waxa weeyaan waa qofka aaminsan inuu runtii wanaag u wado isbedelkani kaasi uu taageeraya kor buu u taageeraya waanu halgamaya daawada casharkeena maanta waxaan kusoo koobaynaa isbedelka waxaan soo sheegnay qaybuhu leeyahay darsigeena soo socda waxaanu si toos u gudagelaynaa sidee baa runtii isbedelka loo sameeyaa waa maxay talaabooyinka aad qaadayso haddii aad rabto isbedel runtii dhab ah isbedel istiraatiijiya in aad ku samayso organizationka aad ka shaqaynayso munadamada aad ka shaqaynayso sharikadaada iyo wasaaradaada isbedelka qaabkeebaad u samaynaysaa qaabkeebaad uga hortagaysaa dadka raba inay ka hor imaadaan isbedelka aad wado qaabkeebaad dadka aad uga hortagaysaa waa maxay istiraatiijiyadaha aad isticmaalaysaa ee dadka aad kaga hortagaysaa عشرين دبنا أرماها كسر قادن دونا هل كاسين كسر كوبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتاي آدي أدبو مهسين هاي بروفيسور كبرنامج كان وحكلونا آدي أدبو مهنا قلنا داوديا شهد حشمة يقدرنتها بدن إلا صعدة برنامج كذا كل دونا نوجته من التلفزيون كقرأ كشمولد الشمالان وهنجعله قيبتا كورنتا كل من قيبتا هيكتا وهتكون عارفنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته